Good job. Yes, very. waxaan jeclaan lahaa inaan bal wax ka maqalno ee Thank dhalinyarada. them first. Add the Medicine. I'm thanking all the team, the football team. It's a soccer team in America. Soccer Yeah. team. barnaamijkan waxaa hirgeliyey Sita Chiropractic and Massage. ma gashay shil gaari dhaawac ma kaa soo gaaray shaqadaada haddaba waxaad u baahan tahay daryeel dugmo iyo qareenkoodooda intaba waxaa kuula diyaara Sita Chiropractic and Massage. waxaa kale oo ku diyaara shaqaale ku nugul iyo dhakhaatiir tayo leh. Sita Chiropractic and Massage waxay ku dhex taalaa suuqa Sita International Mall. waxayna furan yihiin Isniin ilaa Jimce 9:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo. waxaad kala xiriiri kartaa telefoonka 425-529-7522. waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel dad luqadooda ay ku hadlayaan oo moolka Sita ku dhex taala ku soo dhawaada. So, and your Magacyadii waxaan hayaa coach baa jooga. coach horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay mahadsanid Axmed Maxamed oo asaga ah dadka meesha jooga kamid ah. Saciid Mucaad maasha Allah Saciid waa abo Soomaaliyeed asaga naga qayb qaadanayay. Thank you Saciid for being here and he made sure that Mona is here. So thank you. Abaha Soomaali waa coach. Abaha Soomaali title-kiisa waa coach. Coach Mohammed Qasim one of the coaches. Thank you so much. MashaAllah. And Mohammed Muallim coach kala weeyaan aad u mahadsan yahay. Coach Abdurrahman aad u mahadsan yahay. And coach waxa ku xiga Abdullahi Mohammed. I want to know what is the young coach's name? Mohammed Qasim. Mohammed Qasim waxa weeyaan now I think he's 19 but he was a coach when he was 15 I remember. Mashallah. And he's a certified coach now. So the youngest coach that I have seen in Seattle buu ahaa. So thank you for coaching our children Mohammed oo aad u mahadsan tahay. MashaAllah. sidoo kale ciyaartooyda dhalinyarada dhan teamkii dhan baa meesha fadhiya. So teamka la'aantiis coachna ma jiri lahayn soo maaha. coachka wuu jiraa because teamaa jiro. teamka la'aantiis coachna ma jiri lahayn. So waa mahadsantiin. waxaan rabaa inaan bal idinkana wax idinka maqlo. Microphone waa idin dhow yahay. So go ahead. aad baa ku mahadsantiin barnaamijkan noo soo dejisan. waxaa ka qaadan karnaa advice ka qaadan karnaa oo anaga ka weynaano reel lahano ka qaadan karnaa. aad baa ku mahadsantiin. MashaAllah. Good job. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. waxaan idin weydiin lahay Soomaalida waalidiyaasha inta ugu badan especially wiilasha inay kubad iyo waxyaalahan sports aadaan waalidiyaasha ma jeclaan. So maxaad ku dhahaysiin leen wiilashana sportska aad ay jecel yihiin waalidiyaashana meesha sportska ilmaha ma geynayaan. maxaad waalidiyaasha ku dhihi lahaydeen siday wiilasha markii hormoneska ani waxyaalahan ku soo kaco inay garoonkii meelahana aadaan marka hormoonkaas qaarkood iska soo dejinayaan maxaad ku dhihi lahaydeen? macallin khayr ilaah ku siiyo waa mahadsan tahay. runtii arrintaas aniga si khaas ah ii taabanaysaa. sportska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fiican oo dhalinta ka badbaadiya waxyaabo kale inay ku mashquulaan. aqlina wuu dhisaa oo ujeedaa isha marka su'aashuna maskaxiyan wuu dhisayaa. maxay ahayd jirkan wuu dhisayaa. coachka haddaa mar idin sheegayay dhalinyarada cuslaatay oo magaalada joogta nin ka mid ah ii yimid mar xafiiskii igu yimid wuxuu igu yiri ma xasuustida 9-meeyadii waagii aad magaalada coachka ka ahayd waagi aniga kaliya coachka ahaa. coachna waa ahaa playerna waa ahaa. dhalinyarada aruurin jiray intaan baan soo qaato ciyaarsiin jiray. wuxuu igu yiri haddii aan waagaasna wadwadi lahayn oo kubaddana ciyaarsiin lahayn hadda xaaladdeena saan way ka doonaan lahayd. marka waalidiinta waxaan kula talinaynaa in ciyaarta kubadda lagu maaragtay ilmaha lagu baraarujiyo oo runtii intay wax kale ku mashquuli lahaayeen in sports ku mashquulaan aad u fiican tahay. waalidiinta aabayaasha iyo hooyooyinkana waa ku baraarujinaynaa in ay qayb ka qaataan. qaybta kaliya ma inay ilmaha soo diraan in ilmaha la ciyaarsiiyo. wadankan waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay
waxay u baahan tahay in taageero kasta oo loo fidin karo in loo fidiyo marka macallin waa kugu taageersanahay waalidiinta in arrintan lagu baraarujiyo inay taageeraan ilmahoodana u soo diraan sports inta meel kale ilmahana ciyaartu way jecel yihiin ma jeceshiin inay ciyaartaan kulligan waa jecelnahay maasha allah mid baan ku dari lahaa marka su-aasha xataa inamadoo keliya ma aha riyaada playing sports in any kind for boys and girls communitygeena hablaha aad bay uga gaabiyaan markay noqoto sportku maskaxdu dhisayaa siduu yidhi OJ maskaxda iyo jirka iyo akhlaaqda iyo mental healthka because the endorphins ilmahani markuu ordayo waqtigiisa wax faa'iido leh and positive reinforcement kalsooniduu dhisayaa inamada laakiin waan arkaa sometimes inamada waa la diraa waalidkii ma joogo ma taagnaa meeshii ma caawiyo qaar way joogaan usually but hablaha aad baa looga gaabiyaa hadduu inanku kubadda ciyaari karayo gabadhuba laga way leedahay kubadda way laadi kartaa so and I know there is a team of football or soccer team of girls mashallah but we want to see more basketball hadday noqoto all the sports you know in a caruurta lagu taageero oo loo diro or like tracking even running you know we are the fastest people it's just we don't try ourselves very good point Mona thank you All right, my question is, this may not apply towards me exactly, but maybe around the youth's mind that's running, this question is maybe running through their mind. How do they, so you guys kept talking about parents sitting down the children, parents talking to the child. What advice could you give to a youth that wants to talk to their parents that they can't get to them? Very good point. We talked very about good that point before the show. That's one of the goals we have, to give you the power, to inspire you to have that conversation. Haddaan anigu hooyadii ahay aanan qof weligii la hadlin carruurtayda ama aniga layla hadlin, we want you to take the tactics exactly like they said, love, coming with understanding, sitting down and ask them to listen and be kind, because carruurta mar dambaan ka oranaya mar labaad mar saddexaad mar afraad halka waalidku taagan yahay iyo halkan idinku taagan tihiin is totally different. You speaking from a point of privilege. Think about that. Privilege, because gurigii baad degan tahay, biilkaagii waa la bixiyaa, school baad tagtaa, you save, you ask for whatever you want and they can, you know, they provide, they try the best they can to provide. So you're coming from a point of privilege. Ayaga laakiin waxa laga yaabaa inay iskoris, they did all that on their own and they survived, so they can't understand. Although wax walba haysta, how you not, I survived. So I want you to actually take what we talked about, the attention, the acknowledgement, the affection, the authority, the boundaries, but in kindness. Ogo inu waalidkaa yahay, inuu waalidkaagu xaq kugu leeyahay haddaan anaku muslim nahay, adoo aana xanaaqin wanaag iyo hadal markaad adug wanaag u bilowdid. She's like, how come my son at 11-year-old, you know, wuu gartay anigu waan garan waayey, they're gonna listen. But I want you to take the initiative and have that conversation and say, Hoyo, how come we never went in a date? You know, Somalida ma baxaan carruurta, they have 6, 7 date. Can we go for a coffee? Can we go, you know? Ma kula hadli karaa? waxaan ku darayaa, I just want to add to that, to the young coach. Thank you very much. That's a brilliant question. To open the platform for the youth and parent conversation. Yeah, our next episodes. To be youth and parents conversation, talking to each other and sending the message and understanding each other, inshallah. So that'll be one of the things that we need. Yes, absolutely. Thank you so much. That was a good question. I have one more question. Okay. So we talked, so why should a parent listen to their child? Like why does, I guess in our society we see just one voice matters, just the parent's voice. Mm-hmm. Why should the parent take in consideration of their child's voice? Like why should they
take in that point of view also. That is what we have discussed tonight, and that's what we're trying to reach the parents to understand that they are not only the only talkers. They have to listen to the, you know, they have to listen to their child. Inay ku dhageystaan waad marka hadlaysid. Marka it's lack of knowledge, and waalidiin badan ma fahamsana arrintaas. Marka insha Allah ta'ala, this is program kan wuxuu ku saabsan yahay. This is what it's all about, and I think this show will be the key to more conversations to come, inshallah. And why? Because you, the investment, Histan, you kids are everything we have, period. Waxa loo ordaya waa idinka, waxa loo tacbaya waa idinka, waxa Maraykanna keenay waa idinka. It's just we don't know how, and I'm talking as a parent, we don't know how to have that conversation because we never had examples. يعني waxay annaka naftarkayga, we're learning a new language. Exactly. It's not only the culture. We're learning a new language. But why should we listen to you? Because we love you. It's just we don't know how to show you. So I want you to start and lead me. I will take it. And I'm sure every mom and every dad, this is what I want to talk about. Let's have a minute together. I don't think anybody will say no. And midda kale oo loo dhageysanayo oo lidin dhageysanaya waxay tahay berri waxaa noqon doontaa aabe. Maanta haddaan lagu dhageysanin oo waxa aad dhahayso la ixtiraamin, berri adigana waalidka markaa noqoto aabba aa noqoto ilmahaaga ma dhageysanaysid. Yaana waxaa leedahay ani aabahay ma isoo dhageysanine maxaan kaa dhageysanayaa. So waxaasaa rabnaa inaan joojino si aad berri toole u noqoto aabba fiican. Wiilkaaga wiilkiisana saasay ku soconaysaa, waayo waxaa weeye generationno badan ayaa noqonaya, dadku way korayaan. So saas waa waxa lagu dhageysanayo. Yeah, and also you matter. And because you are important, waxaa tahay muhiim, waxaa tahay qalbigii waalidka, waxaa tahay waxa ay ku daalayeen ku dhimanayeen. Sababtaa darteed waa in lagu dhageysto, waa in lagu dhageysto. Waxa weeyaan because of you matter. You're important. You matter and you're important. Wallahi inaan ku celcelinno weeyaan. Ilmaheenu si u fahmaan inay muhiim yihiin. Marar badan waxaa moodaa waalidka kaliya inuu muhiim yahay. May. Waalidku muhiim ma noqonayo ilmuhu hadduusan muhiim ahayn. Marka waa labo isku mid ah. Waa isu baahan yihiin. Waxaan ku daalayno haddii ay noqdaan wax aan waxba ka soo bixin, dan maxaan ku daalan haddaan waalidnahay. Marka idinkiina waxaad tihiin, waxaa la yidhahdaa hooyadu waa laf dhabarka. Ilmaha waa qaybta udub dhexaad ayagana ah. Waxaan ku daalayno, u shaqaynayno oo u ordayno oo wax walba u samaynayno waa inay ilmaheeni ay helaan wax walba oo korino ilmo wanaagsan, qurux badan. Marka waan jecelnahay ilmaheeni sanaya because waa muhiim baa u tihiin. They love you. You matter to them. Marka intaas ku soo gabagabeynayna ma sha Allah. I think we did. Yes. Yes, ma sha Allah. Thank you everybody. Thank you. Ma sha Allah.